soo dhawaada asxaabay soo dhawaada waan idin soo dhaweynaa soo dhawaada Soomaali u diida ceeb waa dhibaatadii dhacday gabadhii Caaisha Ilyas annagoo dhan bay la saameysay arrinkaas maalin walba indhaha maan ka daawan karnaa gabdho walaalayaal walaasheenna ah na dhashay aan qabno in maalin walba kufsi iyo waxyaabo aan joogin lagula kaco wallahi waa dhibaato cadin arrintaas khayr cadin bay nagu rantay maxamed ali soo dhawaada asxaabay waan idin soo dhaweynaynaa aad baan idin soo dhaweynaynaa dhammaantiina meel walba aad joogtaan soo dhawaada ayaan leenahay arrintaas ayaan ka qiiroonay sida awgeed marka waxaa weeye in dhammaanteen aan qiiro muujino waayo waxa falka lagula kacayo waa walaasheen hooyadeen gabadhaan qabnay waa dumarkii baaba intaa ka koobanba marka waxaan indhaha ka daawan karna ma ahan waa arrintii ugu darneed ee baraha bulshada qabsatay mid baa ka dhacday Boosaaso ma hayna cadaaladeedii mid kala dhacday meel laguma sheego maalin walba laguma sheego miyaan hayni karnaa anagoo raggi intaan la eega soo dhawaada asxaabta aan rabnaa inaan ka hadalno asxaabta kale si wadaag share si dhaha saaxiibayaal wax aan cidi ku afrigaadaynayna ama aan ku ajaasaynayna ma ahan live-kan laakiin kaliya waxaan u soo galnay wuxuu yahay xishoodkii waa naga tagay hal nin xun oo damiir aan lahayn baa waxa sameynaya oo rag iyo idin ku dheeliyay Allah yuqarrib dabeesha alla ku raaci dalkeena khayraad ku leeyahay mujido insaan u faa'iideysan lana markaas uu gabar ku soo noqonaya gabar iyo la ilaaha illallah barnaamijka sarabna asxaabay inaan ka hadalno inaan barnaamijno inaan duco aan halka ugu darno eeladii ay ka baxday gabadheena yarta baxday waxa weeyaan aan jecelnahay inaan maaragtay oo dirno fariinta muuqaalkan si share gareeya gabar kale waxa dhacdo kale oo ka sii daran gabar kale baa saakayada xaafad islii ah meedkeedii inta hadal la jirtay shuqul jamaal qaashuudi isku bedeshay waa ka xunnahay wallahi dumarkii in la laayo dunidu way nagu la yaabtay way saabta aad bay u soo galayaan yaa ku jiraada ciila ka qawana wallahi ma ka wallahi waxaan sameynaan garan la'aan ka qaba gabadha sameeyay Soomaali u diida ceeb bay ku haysaa Maryam Mursal ceebtina ay nagu socotaa Allah yuqarrib balligu waxa sameeynaya malin aqoon leh ba waa juhala qoys juhalo ka soo jeeda kaas توجيدا أو قفل الضحويان برامج كوا بلامن دونا أصحاب شيء شرقلي أصحابنا صوبة تعمجيد هذا ما سنتين سنابيال لما أنتي والدين ما هتعلنا عد الله فكر كذا كسر ديبته أم هناك هو أركته أم حمان هو أركته وانسود ويننا حواي وحن كهالينه ووح أنك سامين وياشي صاحبيال نسود ولا عمجيد ما هلك بلاوية إنسان بلاوية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله هذا هو حمناي هذا هو خير سنة بين المشجعي وأنا عم بارينا يا أن دريكي مركان أركي وهو قفل بجبر اللاتي قفل بمسلنا واجب كسرا واجب كها هذا مد
دعاء واجب كها مد ما رجعوا dhiirigelin ah oo la doonayo in qofkii baxay lagu tacsiyo waajibkii saarnaa aniga Cabdimajid Aadan Cabbaas aan ugu talagalnay saaxibada runtii waa wax aan Soomaali loogu baran waa wax aan loogu baranin dhaqan xumada aad ka u fooshoon ee qof walba markuu arko runtii aad maaragtay isku bedelayo aad ugu naxayo aad ugu maaragtay jirracoonayo gabar haatan ubax ah soo baxaysa waa 12 jir ah in dhacdo noocaas oo kale loo dirta tan saakin waa 14 jir ayadana waxa weeyaan Allah yuqarrib waa waxaan Soomaali loogu baranin waa wax aan marnaba maaragtay oo aanan la qaadi karin hadii aan nahay Soomaali waxaan ugu habsatay waxa weeyaan habaar aan garanaynin meel loogu imaado waxaan Ilaahay ka baryaynaa Azza wa Jal inuu habaarka horta Ilaahay naga dulqaado in qabiil oo maanta aan ognahay dhaxalka aan ka helnay ah in walaasheen la kufsado in adeerkeen la dilo in hooyadeena biri la toogto oo waxyaabaha aan ka dhaxalna qabiilka waxaan isdhihi karaa waxaan uga gudbi karnaa waa in aan u midownaa waxa weeyaan wanaaga aan ku midownaa aan walaalnimo isku maaragtay isku soo qaraabaysanaa Ilaahay wuxuu ku sheegay quraankiisa waja'alnaakum shu'uban wa qabaa'ila lita'aarafu qabiilka kaliya waa isku garasho weeyaan ma jiro walaalayaal qof laandheera ah ma jiro wax quraanka ku qoran waa wax aniga aska keensanay xitaa dastuur oo maanta dhigayo laandheernimo ma jiro saasoo tahay qabiilka waa waxa maanta gabadhaas halkaas dhigay oo uu soo qaban la yahay cidii dilkaas u geysatay cidii kufsigaas u geysatay ee miir laabayaasha ah ma aaminsani qof miirkiisa qaba in uu dhacdo noocaas oo kale sameyn karo wallahi ma aaminsani waxaan Ilaahay ka baryayaa waxa uu maleynayaa in aanan la soo qabanaynin laakiin maanka ku hayo haduu halkan iga daawanay xataa maanka ku hayo maalin aan maanta ahayn hadii xataa sharciga ka badbaado inuu Ilaahay Azza wa Jalla uu soo qabanayo marka waxa weeyaan annaga waxaan nala gudboon inaan u duceyno walaasheen inaan u tacsiyano waalidiinteen inaan amaano waxa weeyaan meel kasto dunida ay ka joogan waa u tacsiyeynaa inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun allanahay wallahi beenku ma sheegay waa arintii ugu xumeed ee Soomaali ka dhacda arimahan oo kale waa wax Ilaahay subhanahu wa ta'ala laga magan galo wallahi billahi wa ta'ala saaxiibayaal asxaabta si sheer garaya muuqaalka si asxaabaha kale ay nolol wadaagaan wallahi aad baan u qiiroonaya aad baan u ficloonaya aad baan u nacaya in qof Soomaali sheegta in waxyaabo noocaas oo kale uu ku dhaqmaa qof Soomaali magaca kula sheegta in waxyaabo noocaas uu u dhaqmaa laga yaabo xataa in had markuu uu u dhaqmo in maaragtay lagu soo fadhiisto shir lagu soo fadhiisto oday duli ah oo Ilaahay aan ka cabsanin oo aan sharciga aqoonin oo xaalan kala qaadanay ay dhacdo waxaan aaminsanahay nooc falalka noocaas oo kale ah markii Soomaalida ay ku soo booto inaad maaragtay dabar go'aysan war Ilaahay aan ka wada cabsano war asxaabi aan u midowno cadowgeena oo ah kan doonaya inuu nabad dabar gooyo oo ah kan doonaya haweenkeena inuu ataago kan doonaya in uu qabiil iyo qurun intuu nagu abuuro waxyaabaha waxaas la dhigay waxaas oo kale waay wallahi horta dhammaan cabsida Ilaahay baa na deeqdo dhammaan teemba cabsida Ilaahay baa na deeqdo laakiin ha ogaada ninkaas fariinta aan halkan ugu dirayna ama live kan waxaan u soo galnay waxay tahay maalinaan maanta ahayn baad hor istaagaysaa wajiga Ilaahay subhanahu wa ta'ala waa lagu la xisaabtamaya dhuumo ama fako laamaha amniga hadhaan waa la waayay ninkii gacan lagu ma hayo maalin aan lagu waayna jirto lagu soo istaajinaya Allah yuqarrib juhal marka gabar 12 jir ah uriya iftiinka u soo baxayso wuxuu kula dhaqmay uu kufsaday dilay hadana ma waxa indhaha ka daawan karna ma waxa indhaha ka daawan karna wallahi waxa hadana kaga sii darneed mid kale oo 14 jir hadana saakay isli lagu jaray ayadana dil ma ka tagtayba la jarjaray maniki Istanbul waxa ay sheegay galay qonsuliyada Istanbul oo noqday as gabadha iyadana isku bedeshay Jamaal Khashoggi waxaan daawan karna ma ahan war aan kacno aan u midowno war ragiyahow annaga maanta isdhigay waa ma asaaba min musiibatin fa bima kasabat aydiikum waxaan annaga gacmeen ku kaysanay waa musiibadan
ma soconaysa laakiin waa lisaga daba imaanaya wallaahi oo billaahi oo tallaahi inaan gabar Soomaaliyeed mar dam inta lagu xadgudbo ya aan laga aamusi karin laakiin maalin walba waa laga hadlayaa live man soo galayna waxaan ka hadlaynaa laakiin ficilkeeda la qaaday tan Cabdi Majiid waxa weeyaan runtii waxaan dhihi karnaa inta badan dhacdo markay dhacdo waxa dhacdo in aan kaliya baraha bulshada aan ku ekaano dhacdo markay dhacdo xanuun badan in kaliya aan ku ekaano inaan post yar soo qorno ama oraah yar aan ka dhahno wartaas wax ma ku hagaagayaan maalin kale waxa noo dhimanaa wallahi billahi ka daran waxa noo dhimanaa ka daran war ilaahi intaan ka cabsano oo aan midowno oo aan isjeclaano taasay xal ku imaan kartaa taasay wanaag ku imaan kartaa taasay carafteena iyo riixdeena maanta haduu sharci jiri lahaa ilaahay ku darshay ma noocaas xasuuqa geystay ma noocaas gabadha inta la eg oo walaashayda ah saa u galay ma ilaahay idinku dharshay wadada si nabad ugu mari lahaa maanta waxa laga yaabaa inuu gurigiisa si nabad ugu jiifo maanta waxa laga yaabaa oday inuu maanta ka shaqeynayo inuu odayaal kala soo hor istaago asoo dhahaya ninka noocaas iyo falkaas geystay warlaalayaal oo aan ku xaaltamno waxa dalkeena baabi'iyay runta markii laga hadlo odayaal calool shiish u shaqeystayaal ah waay marka waxa waayo aad ugu xunahay aniga qaasatan aad ugu xumahay walaalkii Cabdi Majiidna qaasatan aad ugu xun yahay dhamaan asxaabta shiisha garay la sii wadaag ilaahay idinku dhaarshay muuqaalka si uu inoogu boorto inuu fariintan dad badan ay gaartaan jeclahay ilaahay ha idin dhowray sii shaar garay ilaahay dartiis ku shaar garaya wallahi waa arin laga naxo waa arin laga xumaado waa arin aanan loo adkeysan karin waa arin u baahan in xilli kasta dhacdo kasta waan ka hadalnaa tan ficil u baahan tahay walaalayaal aan u istaagno u gargaaridda hooyadaas ay ka baxday oo samridda tacsiyeenta aan ku dadaalno wallahi aan ku dadaalno waxay u tahay niyadis wax ma ka qaban karno maanta galkacyo ma joogi kismaayaan joogaa balse waxaan awoodaa in halkan aan ka habaaro kii wax geystay awooddeeda intaas ay ku dhantahay ilaahay waxaan ka baryayaa in kii falkaas geystay ilaahayo in cad u jarto ilaahay waxaan ka baryayaa intii la ogeed inta qarinaysaba waa isku dambiye in uu ilaahay calaamad uu ka soo dhax saarta ummadda inuu ilaahay ka soo saaro wallahi dhacda ka xun ma jirto adduunka intaan maaragtay oo joogayna wax iiga xun ma jirto marmarka qaar way ku qabanaysaa waxa arkaysaa wax aadan u adkeysan karin oo qulubkaada ay u adkeysan karin wax aadan qaadan karin wax adiga hadaa qaadan karin walaalka ma qaadan karo walaalayaal waxa idin ka codsanaynaa in xilli kasta aad naqataan dad midoobay maxaa yeelay waxa ku soo noqonaya karaamadiina iyo sharaftiina waxa ku soo noqonaya ciidadiina iyo karaamadiina muuqaalka si share gareeya muuqaalka si share gareeya saaxiibayaal dunida aan ugu leeyahay maalin walba waxa la dhahaa Soomaaliya tacadiga kufsiga ku badan caalamka dhaay anaga laga iskeenay شيء اسمه بانا تن واحد كهرباء شيء وبانا تاي muuqaalka si share garay asxaabta si noo soo bataan si barnaamijkeena u sii wadano insha Allah waana jecelnahay idinkan inaan nala qaataan barnaamijka waa idin mahadcelinayaa saaxiibada qaaliga ah والله هو كيسوي خالد عبد الواحد أرنتان كهذا لو بهنتاي صاحب هستان محن كنت منا مرة هذا تجيسو ويا هاي صاحب الغالية وما سنتين مقالك سيشر قرية عاد بايدي كجماعة علنايا جوابو نجاهد انتاس عبد المجيد ساد وقتها هي دعوة سحنون كبدن أي كدعوة قال كعيو ودعوة ضد كورنا أي كوذا نحين نيروبي كدر أيضا نيروبي دعوة نوعا وكلا كدعوة إنكستو دلش شيء تهاي أو شرعي والصومالي قبل قبلنا هدي أي صومالي تهاي حتى ودل شرعي وكجرو قال كعيو معمولا كجرو
ha kala qaybsanaado laakiin maamul waa maamul waxaan ku bogaadinayaa maamulka iyo dadka deegaankaba inay arrinkaasi ay wada kacaan inaan arrinka loo arag yar wallaahi waa arrin foolxumo ah waa arrin aad u weyn waa arrin aanan la yaraysan karin waa arrin aanan marnaba laga aamusi karin asxaabteyda waxaa idin leeyahay inta haatan i daawanaysa ogsoonaada waxa keliya ah karaamo ku leedihiin waxa weeye inaad isgarabsataan inaad wanaagga isku garabsataan maanta haddaan isgarabsanno oo aan tiim u wada noqono cadowga gabadha ataagsaday cadowga gabadha faraxumeeyey oo aan gacanta xitaa haddii aan awoodi weyno inaan afkeena ugu helino wallaahi wax aan la heli kara ma ahan walaalkaa waa u helisay ogow walaalkaa siyaabo kala gedisanaa ugu helin kartaa afkaada ugu helin kartaa gacantaada ugu helin kartaa qalbigaada ugu helin kartaa adoo kala haysanaya marka intaba haddaan awoodno annaga waxaan awoodnay maanta anagoo kismaayo ku sugan in afkeenna aan maaragtay ka habaarno ilaahayow cadcad u jar ilaahayow adaa weyno waaxid cadcad u jar qiyaanoolihii qaa'inkii gabadhaas yarta ay da-da yar saas u galay ilaahow rabbiyo waad aragtaa waxba kaama qarsana ilaahow quraansho yaroo madow oo mugdi madow ku socoto wallahi inaysan kaa qarsooneen ilaahayow adaa caadil ah adaa ah xaq adaa xaq kuu caabudnaa asxaabta inuu soo qabtay liin qaar ka mid haddaad suuragal ay tahay noo soo qabo waa soo qabanaynaa waa idin soo qabanaynaa saaxiibayaal idinkuna inaad soo beegsataan isku daya muuqaalkana sii sheer garaya aada idinkaga mahad celinayaa waana mahadsantihiin 100% akhyaarta aada idinkaga mahad celinayaa waa idin soo qabanaynaa walaalayaal muuqaalka sii sheer garaya aada idin mahadsantihiin aada u mahadsantihiin bishaaro insha Allah waa idin soo qabanaynaa aad baan idin jecel lahay inaan idin soo qabanno idinkana inaad soo koolgareysaan isku daya si aan idinkuna barnaamijka aad qayb ugu noqotaan sii sheer garaya muuqaalka sii sheer garaya waa idin soo qabanaynaa asxaabta idinkuna farta soo taagta ilaahay waxaan ka baryaynaa in cadowgaas waa cadow aan ku tilmaami karaa walaalna lama ahan waa dad maaragtayo ilaahay ka furtay waa dad aanan cabsi ilaahay ku jirin marka waxa weeye waxa kaliya aan dhihi karno waxay tahay in aan habaarayn karno aan isdhihi karno waxa kaliya looga qayb qaadan kara tahay inaan habaarno aada u mahadsan tahay cabdi bishaaro aan soo qabanaynaa walaashan qaaliga ah soo dhawow asxaabtan ay qayb qaataan asxaabta sii sheer garaya muuqaalka sii sheer garaya waxaan naga hadlaynaa dhacdadii foosha xumeed aynan dhiiri maaragtayo argagaxan ugu riday aanan ka aamusi karin ee aan jecel lahay bishaaro soo dhawow walaal qaali ah magacaada iyo goobta aad ku nooshaa walaashay waa dhawaa walaal mahadsantihiin garowe soo dhawow walaashay soo dhawow walaal qaali ah waxaan ka hadlaynaa waa dhacdo xanuun badan oo runtii aad noo argagixisay bal dhankaada dareenkaada iyo weliba fariinta halka aad ka jeedinayso wallaahi walaalow waa la socdaa barnaamijka haddaan soo qabsaday waana dareemi karaa waxa laga hadlayo dee dareen ma leh dareen ma jiro maafi maaragtay dareen qof kasta oo islaam ah ama dumar ah ama dhiig dee bini aadantinimo ku jirto islaam ka sokow bini aadantinimo ku jirto waa wax aad looga noxo maaragtay iskada dad islaam ah inay waxaa sameeyaan kale waxaa sameeyay waa rag waxa lagu sameeyay waa gabadh yar oo 12 sano jirta sida la sheegay waxay dhalatay 2007 bay dhalatay ilmo yar bay ahayd anigu waxaan leeyahay nimankaas waxay geysteen inay kufsadeen kaliya maaha inay jirkeedii saas u galeen maaha waxay geysteen dhowr dambi bay geysteen waxay geysteen gabadhan hada sida warkaa ku maqlay de warkii oo sax ma aqaan laakiin sida lagu maqlay gabadhii mudda la maalnimadii mise habeenkii baa la waa saxan tahay bishaaro aad iyo aad gabadhii horta inay khadfeen oo ay yani xadeen laba oo inay gabadhii okay maba xumo warigeed dad la xadi jiray gabadhaasi waa la xaday markii la xaday waxa jirkeedii waa la dilay waa la kufsaday ma xumo dumar warigeed baa la kufsan jiray Soomaali okay dambiga saddexaad galan waxay tahay waa ilmo yar ma istaahisho waa 12 jir dambiga afraad wuxuu yahay
haba xumo iyadoo 12 jir ay tahay Soomaaliya kun dhacda ka dhacdo kun gabadha kaliya maaha ay si xun bay iyada u galeen aad iyo aad kuwa 8 jir baan soo aad iyo taagnayn aad, aad iyo oo aad. kufsaday 8 jir la kufsaday baan soo taagnayn laakiin dambiga afraada geysteen waxay tahay intay khadfeen oo qarsadeen oo dileen oo kufsadeen oo jirkeeda dhaawac u geysteen bay haddana guriga hortiisii u soo dhigeen hadday xataa suuqa ku tuur lahayd guriga hortiisii bay soo dhigeen naxdinka weyn ma jirto waxaas aad iyo aad wallahi naxdinka weyn ma jirto bana waxaan dhihi karaa anu markaan u hadlo genderka markaan u hadlo waxaan dhihi karaa aad iyo aad waxaan sameeyey kolle waa in rag waxaan sameeyey awalba dumarka Soomaaliyeed dumarka Soomaaliyeed dadku isku mid ma ragga Ilaahay faraha ma sibin rag wanaagsan iyo rag waxa jira xun sida waxa sameeyay ma garatay haddana waa dhurwaa wixii waxa lagu sameeyay waa cadki bisla waa dumar marka waxa sameeyay kolle waa rag dumarkii oo Soomaaliyeed oo la liidi jiray oo maaragtay mar jirkoodii si xun loo galo ama la gabdhihii haddii la gudi jiray ama la xumayn jiray ama haddii maanta la galay caalam oo horumar ah oo diinta islaamka dadkii Soomaalida ay fahmeen oo ay qaateen oo Soomaalida raggeedu waa rag aad u xun dumarku laba xaq bay leeyihiin adduunka sida la yaqaan waa inay tahay gabadh islaama Ilaahay quraanku xaqeedu ku sheegay ma aragtay Soomaalida ragga Soomaaliyeed islaamnimo gabadha xaq uma siiyaan gabdhaha xaq uma siiyaan kitaabka quraanka ah xaq uma siiyaan bini'aadantinimo iyo adduunka wax ka jirna xaq uma siiyaan Soomaalida raggeedu waa useless uma siiyaan gabdhihii labada xaq way ka lumiyeen maba xuma waxa lagu jira maanta adduun horumaray adduunka maanta waxa kuma qarsoona haddii caadooyin hore oo dhaqan ay kala kici jireen dumarkii maanta 2019 xataa wali waxay ku daba joogaan shaqadoodii bay ku daba joogaan waxbarashadii baan loo ogolayn waxaan leeyahay gabadha yar yacni gabadha yar kaliya maaha ninkaas inuu kufsaday waxay ka bilaabataa nacaybka loo qabo gabadha Soomaaliyeed inay hormarto ama ay bulshadii si sharaf loogu noolaato guriga aabaheed baa ka kooyay wiilasha waalaheeda ka koowa inaan waa gabar sidaa ma samayn karto waa gabar xagaa ma aadi karto waa gabar magaca waaba nacay ay hayd waa gabar sidaa ma samayn karto bulshadiina kii xumaa markuu arko waa gabar buu dhahayaa waa gabar buu dhahayaa kii xumaa buu dhahayaa waa gabar waa iska wax la liiday waa kontonle quraanka meel kontonle ku jirto ma jirto ma garatay dumarkii marka labada dhinac wada ragga Soomaaliyeed wadaadada baa la hadlay wadaadadiina waa dad iyagu Ilaahay ba xalkooda og ma garatay wadaadadii xaalkooda Ilaahay ba og wadaadada la hadlaya Sheekh Umar ninka la dhaho waxa la hadlaya dadkii wadaadadii oo Puntland wada Puntland gaalkacay wada jooga gaalkacay waa meel diinta aad looga yaqaan aragtay ma lama joogo xilli diinta la iska dhigo kitaabka Ilaahay laba jirka maanta fasiri kara Soomaaliyeey laba jirka maanta fasiri kara wadaadada waxaan ka codsanayaa gabadha isqaawisay oo Ilaahay kala xisaabtamay jirkeediiba oo kiin jaamaci markay isqaawinaysay waa ka hadlaysay wad qabanayseen waliba waxaan ku darayaa dumarka Soomaaliyeed dumarka Soomaalida oo xataa wadaadada ah oo duwooyinka qabto gabarba isqaawisay soo koob bishaar hay isuga hadalka dhameystay taga dumar wadaada ah hay walaashi hay haka waliba ragga wadaadada kala reemay waxa la akhwaankiina wadaadada ah haddaad muxuu ahaa gabar qaawan aad dhihi jirteen waa dambi iyo wuxuu fasuqinaysaa iyo halo jaji waxa gabadhan yar ilaa waxaan bini'aadantinimo ka tagtay diin islaamka waxaan waa diin ka bax bini'aadantinimo maraysa bini'aadantinimo inanta yar xaqeeda loo soo dhiciyo oo nimana kan suuqa inta waa la garanaya wallahi billahi taala waa la garanaya ma qarsoomayaan waxaan sameeyay waa mahadsan tahay waqtigaaga waa kaaga mahadcelinaynaa bishaaro aad baa u mahadsan tahay dareenkaaga iyo sidaad u muujiso waan kaaga mahadcelinaynaa aad iyo aad waana wax dhammaanteen noo wada yaallo waan ku mahadcelinaynaa waqtigoo nagu yar awgiis aad baad waayahay bishaaretaasi ahayd garowey nagula hadlaysay aad ugu mahadcelinaynaa bishaaro wax badan ay ka hadashay waxay ka hadashay waxyaabo badan oo anaga aan hadda sheegi rabnay oo ah in culimmada Soomaaliyeed ay u kacaan oo ay u guntamaan in maaragtayo ay maaragtayo noqdaan kuwa kasta ka hadla waxyaabaha munkaraadka ah aan hadlin dhacdooyinkii ugu dambeeyay ama dhacdadii ugu dambeysay haatan dhacday oo ay ka mid tahay dhacdadii xanuunka badnayd ee loo geystay gabar da'yar ah marka waxaan dhihi karaa culimada Soomaaliyeed muhiim tahay ku jira maxamed salaamu calaykum nimca axmed dooxane soo dhawow وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ودوي ولا الله. جد نقول صانع.
xageed nagala soo hadlaysaa nimco soo dhawow waxaan idin kala soo hadlayaa soo koob waqtiga aad u yar xageed nagala soo hadlaysaa waa tahay nimco garowe waan ku soo dhaweynaynaa aad baad u mahadsan tahay waqtigaaga iyo janiskaaga waan kaaga mahadcelinaynaa sida aad noo soo kool garaysay annaguna aynu kaaga ajiibnay haddii aad barnaamijka la socotay gudagal bal dareenkaaga cabir soona koob dhammaan dadka na daawanaya iyo dadka codsiyada soo gudbisanayana aad bay u badan yihiin okay walaale horta wax dareen la yiraahdo horta ma jiro qof bini aadan ah oo damiir lihi waxa uu yacni dareenkiisa maanta kale ku cabiro wax la soo koobi karo ma aha qof bini aadan oo waliba anigu dumar baan u ahay oo qofkii dhibanaa baan ahay oo dhibtu gaartay hooyaan ahay oo hooyo ilmo dhashay baan ahay oo jirkeeda ilmo ka soo go'ay baan ahay xanuunka aan dareemayo qof raga ma dareemi karo qof dumar oo anoo kale ah ba dareemi kara horta laakiin anigu wala anoo bicina canjarafaysan xagan waxa maanta halkaana dhigay oo heerkaana gaarsiiyay in laba jiradayadii la kufsaday iska daayay laba jir iyo 12 jir iyo laba jir walaalo waa isku mid waxa isdhaamaan ma jirto waxa heerkaana gaarsiiyay waxa weeye walaale xaakimka noo fadhiya maxkamadda xaakimka noo fadhiya waxaana gaarsiiyay wiilka ila dhashay waxaana gaarsiiyay aabihii dhalay waxa gaarsiiyay adeerkii dhalay waxa gaarsiiyay kii caaqilka isku sheegayay ee wadanka in maxay tahay naga dhashay ee caaqilka noo ahaa baan gaarsiiyay hadii kitaabka iyo sunnada rasuulka kaleey salaatu wasalaam waxay ka soo saartay walaale waa la yaqaanaa wax uu ka qabo waxa uu kitaabku ka qabo kufsiga waa la yaqaanaa wali ma aragteen kufsiga xadkiisa qof la marinayo wali ma aragteen may walaashay idinkii garabaad ku siiseen walaalkay wuxuu dhaafsaday xoogaa lacaga kii xaakimka ahaa wuxuu dhaafsaday xeer kii madaxweynaha ahaa uu ii aamusay kii walaalkay ahaa ima daqman oo ma oran waxa la saa loo galaya waa walaashay kii xeer ilaaliya ahaa sidii oo kale marka maanta anigu yaa waxaan u hadlaba walaalo waa khalad waayo waxaan wax istaagaya ma aha garab malihi oo gaashaan malihi oo maanta caashatan waxa ku dhacay horena way u soo dhacay dibna way u dhacaysaa inaan ka hadlano ma aha waayo hadalkayga qof dhageysanaya ma jirto aad iyo aad walaashay dhageysanaya ma jirto marka inaan aamuso oo ciil la ooyo inta un baayir wax kale tad ileenu garbna malihi hal midaan gabdhaha wada umarinaya gabdhaha idinka garab isu ah isgaansada oo barta sida isu difaaci lahaydeen intaasaan oranayaan oo gabdhow garab idin ma maqana rag idin ma maqana haday idin maqan yihiin kii shalay dhacay iyo kii daraad dhacay iyo kii ka sii horeeyay bay wax ka qaban lahaayeen kan maanta bay wax ka qabanay haday wax ka qaban waan gabdhow idin maqalna ceelna idin maqadna idin ma maqanay xaakim isu noqda oo gabdhaha wadaadada ah oo cilmiga lahu kaca oo maxkamadaha taga oo idinka cadkiisa dhacsan kari cadkiina dhacsada haddii kala soo maaha sida oo habeen iyo maalin ugu baroorta maalin iyo habeen aad baad u mahadsan tahay nimco axmed dooxane waan ku mahadcelinaynaa dareenkaaga iyo sida aad noogu cabirtay runtii waana laga bixi doonaa hadduu alla idmo maalinaan maanta ahayn baa cid waliba ee waxa ay samaysay ilaahay subxaanahu watacaala uu kula xisaabtami doonaa labada garbood qofka muslimka ah waxa saaran waa raqiib iyo catiid midna xumaanta ayuu qorayaa midna wanaag ayuu qorayaa marka sidaa awgeed hadduu isiin waayo xaakimka hadduu isiin waayo walaal cid isiinaysa ma jirto xaakimka ixtiray asagaan adduunya aakhiraba haysta xaakim ma jiro xaakim baa jirin حاكم باكرين ورقبنا وين استفاع دمرة وين استفاع من دين نقاط أولي نقاط إذن مقن ما تبت إذن كاسم مقن بان الله يقبضوا إذن كاسم مقن إزراع أو إسقرب صدا أو إسكدع يا رجال أو جمعها إسقرب صدا نايا إذن مقن ما تبت آد باو ما سنتاي مع أحمد دوحنا ولا آد باو ما سنتاي aad baa mahadsan tahay nimco axmed dooxane garowe ayay iyadoo nagala soo hadlaysay weli waxaynu ku guda jirnaa barnaamijkeenii ee baroordiiqda ahaa aynu ugu baroordiiqaynay gabdhihii iyo weliba falalkii ee kufsiga ah aan iraahda ee ka dhacay magaalada gaalkacyo weli barnaamijkii ayaynu ku guda jirnaa asxaab badan baa markaasi sii sheergaraynaysa dad badan baa na soo dalbanaya runtii dhinaca ragga ayaan markan u jallaacaynaa guure ayaan soo qabanayaa waa tahay guure ayaa iminka qadka si toosa
weli ma soo gelin dadka waxaan kusii boorinaynaa inay iyaguna sii sheergareeyaan dhammaanteenna waa hawshanna howl noo wada taallo cid qabiilaynaysan u yeelin gabadha qoyska ay ka geeriyootay aysan u yeelin qof walba oo Soomaali ah xitaa kan Israa'iil ku nool oo Soomaaliga ah muslimka ah arrintan inuu ka hadlo way u baahan tahay inuu falcelinta culimada inay ka hadasho u baahan tahay waxaan la qabaa gabadhii ugu horeysay ee tiray may culimadii ma hayno culimo ma hayno xaqiiqda markaan idin kala hadlo waxaan qabaa inaad ku celisid xaqiisino qadka ka yar culus yahay aad iyo aad akhyaarta si sheergareeya ilaahay ay idin barakeeyo si sheergareeya aad u mahadsantihiin wax laga aamusi kara ma ahan wax lala tiiraanyoodo oo runtii la muujiyo la habaaro loo duceeyo qoyskii ay ka baxday weeyaan marka sidaa darteed waxaan jeclahay dhammaantiina inaad soo qabto waan jeclahay iyadoo aan marka marayno guntii barnaamijkeena waynoo saamix weysa walaalkeenna Caaisho Norway aan soo qabanaya Norway maadaama dadka asxaabta ugu dambeeyay ay iyagu soo codsanayeen maaragtayo asxaabta si sheergareey ilaahay ha idin dooro waxa weeyaan waa wax Caaisha ku jirta assalaamu calaykum calaykum assalaam wallahi walaa waxaan soo dhawo Caaisha waan ku soo dhaweynaynaa xageed nagala soo hadlaysaa والله ولا وحن كان سو هذا مقالة ترنتان كان سو هذا ما قرأت aad baan ku soo dhaweynaynaa Caaisha soo dhawow waa hadii aad barnaamijka la socotay arrintii iyo waliba dhacdadii ugu dambeysay ee gaalkacyo ka dhacday gabadhii 12 jirka ahayd ee la kufsaday deetana la dilay deetana gurigii albaabkii ay deganaayeen la soo dhigay meedkeeda ayaynu maanta dareenkanaga iyo khiiradeenaga naga aadan aynu cabraynaa balaadna waanu ku soo dhaweynaynaa fikirkaaga iyo arrimahan badbatay qaabka looga hortagi karo inta soo fikiro idilba haday isu tagto wax un baa ka soo baxaya marka waxaynu u baahannahay maxaan ku xakameyn karnaa gabdhaha Soomaaliyeed ee walaalaheed ah maalin walba lagu xadgudbayo والله ولا لو هرتا وين السلامي waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu adiga qaybta dadka ku jira meeshaba aniga horta markayga hore waxaan ka shaqeyn jiray xabsiga Berbera waqtigii dawladeennii xoog lahayd ma sha Allah waqtigaas xabsigan ka shaqeynay muddo 2 sano waxaan ka soo shaqeynay xabsiga asluubta ku yaala Berbera aabahayna wuxuu ahaa jeelash weligiis ka shaqeyn jiray Allah u naxariisto horta arrimahan kale way dhici jireen walaa waxa nagu cusub ma aha xabsiga waa lagu soo xiri jiray waqtigii dawladeennii xoog lahayd maartay waqtiga jirtay waxaana waa haddana wadanka waxa horta ugu wacan anu horta mid ma saarayo qaladka maxay ahayd dadka ma saarayo waa wadanka dawlad la'aan baa jirta kala dambeyn la'aan baa jirta meesha qabiil baa loo kala taagan yahay jifi baa loo isugu soo baxayaa waaga anaga aan dawladda ahayn oo wadanka maamulaynay oo maartay dawladda xoog gala jirtay qabiil iyo jifi ma jirin ninkii dambi gala sida sharcigu yahay loogu qaabi jiray laakiin hadda waxa way walaal dawlad la'aan baa jirta dawladdu weli ma xoogaysanin wadanka ma caga dhiganin waxaa ku badan dad nabadda aan rabin dad aan dawladnimo rabin baa ku badan hadda maxaa dawladaha loo dagaalamay waxaa loo dagaalamay dawladdu caga dhigato ninkii gabadh kufsadaa soo baxaya ninkii guri dad haystaa soo baxaya ninkii maal dad haystaa soo baxaya waxa way sharciya haddii sharci iyo wadan iyo kala dambeyn la keeno wax fara badan baa walaal soo baxay marka dad baa waxay ka dagaalamayaan nabad iyo deganaan iyo dawladnimo in la helo marka nimanka dambiga geystay bini'aadanka dhammaan wada xumaan kara qofna raali kuma kiiska inuu dhaco nimanka dambiga geystay aniga waxaan uga fadhiyaa dawladda Puntland sharci talaabada ay ka qaado waxaan maqali jiray haddii ma hadda waxa diiradda waxa lagu hayaa shaashada hadda ku socota dawladda Puntland madaxweynaha cusub ee Puntland hadda haysta dani ninka leeyahay waxa laga rabaa arrinta talaabo sharci inuu ka qaado uu ka geysto xanuun lama ilaawaan ah oo arrintaas gabar 12 sano jirto ilma innocent ah wadamadan aan joogno waa life xabsi ah wadanka Canada aan ku nool magaalada Toronto joogo waxa weeye haddii arrintaas oo ka dhacdo way ka dhacdaa Canada kufsasho way ka dhacdaa dil ka dhacaa laakiin waxa weeye pay the price ka dhacaa pay the price waxa weeye talaabo adag baa laga qaadaa ma fahantay marka dawladda uu hogaaminayo dani iyo crash waxa laga rabaa nimankaas in la soo qabto meel kastay galaan annaga waagi hore Soomaaliya aan joogay nimanka markay gabdhaha kufsadaan way baxsan jireen Kenya tagi jireen
waxay geli jireen jabuuti u baxsan jabuuti bay ka carrajaxtay etoobiya ka sacay suudaan bay geli jireen nimanka hadda aad maqasho kenya ku tarma iyo nimanka suudaan ku tarma iyo nimanka jaad jooga iyo daarusalaam iyo waxay ku leeyihiin qof baan soo diray gabadh reer baan gabadh kasoo kufsaday waxa weeye dadka meelka hadda adduunka aaladii baa la haystaa nin kasta waa la is yaqaanaa gabadhaas ninkii wax yeelay anigu waxaan aaminsanahay caasho ahaan in uu ninkaasi nin reerka dekana ay kala galeen inuu yahay waayo waxaan wax iisiya ma aha inta qofka la soo diro walaalo in la soo googooyo ininku dhalinyaraata ilmo yarar baatiin waxa weeye aana wey waa nin u ciil qaba ama hooyadeed ama aabbaheed hadda ka hor annaga qisa nagu dhacday nin ayaa waxaa dhacday gabar buu kufsaday faamiliyadayada ah gabadha markuu kufsaday adiga waa laga heshiiyey dhulka baadiyahu ahaa muqdisho ninkii ay timid walaashiis baa muqdisho timid muqdisho iska joogtay xaafadda waxaan joognay madiina waxaa dhacday ninkii gabadha laga kufsaday walaashii wiilkii gabadha la kufsaday walaalkeed baa gabadhii kale helay gabadhii kale wuxuu wiilkii kale la dhalatay gabadhii isumuu sheegin wuu iska qariyey gabadhii maxay wuxuu gursanaya laba wiil buu usoo kaxaystay labada wiil meher beenbeenay sameeyeen gabadhii uur baa kusoo baxay waxay tii war gormaan aqal galnay xaggeen ka aqal galaynaa buu yidhi waa tii walaalkaa ee walaashii uuraya hadda ka hor ku inkiray gabadhi naxdin mana ogay arrinta uu qarshay marka aana waxani marka hadda ninka gabadhan soo googoyo oo soo jarjaray waxa weeye waa nin aana u socdu ahaa ilmaha yar innocentigo miskiinka ah ayuu wuxuu ka aarayay wax ama qabiil ka soo gaaray ama maxay ahayd jifo kale ka soo gaaray ayuu ka aarsanayaa ilmaha yarka oo innocentiga dawladdu waxaa looga baahayay xaafad kasta oo gaalkacyo ku taala ama magaalo kasta oo puntland ku taala ama soomaaliya oo dhan anigu waa sukamid soomaaliya ah maadaama dhul gaaljo oo dhulka waa dhulkayga aniga asaliyan waxaa ka soo jeeda gobolka buuhoodla ka soo jeeda buuhoodla ayaa aabahay ka yimid waxaan kula talinayaa xaafadii kastaba dhalinyarta joogta inay isxilqaamaan 10 wiilba ha isxilqaamaan gabdhaha meesha maray isha ha ku hayaan waxay raacayaan waxay la socdaan qofka u taagan 10 wiilba xaafadii walba 10kii guriba marka hadda 10 guri la xisaabo 10 wiil ha soo baxdo 10ka wiil isha ha ku hayaan gabdhaha xaafad ha la ilaaliyo way cadowba soo baxay hadda waxa way hooyadu dumarku habar yar ama eedo dumarku waxa way waa beerta ila dhashay anaga in dhalay anaga aan Aisha aada u mahadsantahay waxa way hooyo qayb baan rajaynayaa shaqo wanaagsan baad wadaan waqtiga ayaan ka dhusho mar rabo laakiin waxaan kula talinayaa arrintaas arrin easy ma aha dawladda Puntland waxa laga rabaa nimankaas inay tallaabo adag ka qaado xabsigooda 20 sano nimankaas ka yaraan xabsigooda 20 sano iyo ha noqdo ama dul toogasho lagu xukumo waa dilba istaahilaanba maba ahaba madee gabadh dhimatay dilba istaahilaan waa in la toogto way sharciyan waa diiniyan waa in la toogto falka wixii geysta xataa waxa dhacda carruurta waa la shirqoola dumarka qaar baa loo soo diraa shirqoola arrinta waa in loo sameeyo dad cad ah oo dabagal ku sameeyo marka insha Allah qayb baa in rajaynayaa shaqo wanaagsan bad wadaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh wa calaykum asalaam aad ma santahay Aisha oo joogtay waan kaga mahadcelinaynaa waqti qaaliga ee noo hortay dhammaan asxaabteena qaybihii ugu dambeeyay guntii iyo gabagabadii ee barnaamijkeeni live ka ahayd aynu kaga hadlaynay barodiiqda kufsiga ee maalnimadii aynu ka soo gudubnay ee daraad ahayd ee lagula kacay gabadha Aisha Ilyas ee magaalada Gaalkacyo oo 12 jir ay da'deedu lagu sheegay ayaanu arrintaasi maanta kaga hadlaynay dhammaan asxaab badan baa markaan soo dalbanaya waqtiga oo nagu yar awgiis waan iska soo koobi doonaa hadduu eebbe idmo bal haatan ninka ku jira Soomaaliya السلام عليكم لا waxaan ka bareynaa وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عمر شدنا جدي وأنا كسر دويننا صاحب معا halka aad joogto iyo goobtaad Umar uu ka baxay runtii waqtiga ayaa cilay waan kaga mahadcelinaa guuro ayaan soo qabanayaa oo in badan nagu soo celceliyay guurow haddii aad maqlayso waxaan rajaynayaa inaad accept garan doonto si share garaya nabiga dambe marayna inaan waxaan rabnaa halkan insha Allah aan bal fariimo gaaban aan asxaabta aan u dirno insha Allah in fariimahaas idinku aan la wadaagtaan India Abdurrazzaq Hinda
عمرنا دور المصوب عليه إنه كبحي سي شير قرايا أصحابته يا تي دوني دوي وكحنا هاي والله وانكحنا هاي كن جيران كحنا هاي وحان كحنا هاي دعوة دعدي السلام عليكم هندية عبد الرزاق بالله وعليكم السلام وعليكم السلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وين كسر دويننا هندية هلك أتكسرون تهاي قبضة نجس وعي صو والله ما سنتهاي وحن كاسو وعيا مقالة مقدشو مقاعي وهند عبد الرزاق محمود إنا لله وإنا إليه راجعون waxaan taasiirinayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto waxaan kaga taasiirinayaa arrintan xanuunka badan la ee ku dhacday walaasheen sidoo kale waxaan u taasiirinayaa ehelkii iyo qaraabadii ay ka baxday Aisha waxaana ka damqanayaa ay ka murugoonayaa xanuunka walaashay ee ku dhacay waan la qaybsanayaa Soomaali ehelkii gabadhaas ay ka baxdayna waan la dareemayaa xanuunka runtiina waa arrin aad looga xumaado qof walbo damiir lah oo dareen lah oo ka xumaado wallaahi ma aqaana waxaan ku cabiro ma garanayo maxaad u diri lahayd dadka reer gaalkacyo tacsi waayahay si dadkaasi loo soo qabto loona midoobo falalka noocaan oo kale ay ku yaraadaan maxaad baaqa oo aad diri lahayd walaashay والله waxaan diri lahaa madaxda maamulka Puntland inay ficil la taaban karo maamadii ugu horeysay Aisha aan dhageysanay hadalkeed xaqiiq in badan oo qof wax badan og waxyaabaha ay ka hadashay boontiyada ay taawtayna xaqiiq waa waxa loo baahan yahay falalkan dambiyeedka uu dhacaa adduunkan uu ka dhacaa meel walbana uu ka dhacaa laakiin waa in jawaab cad laga bixiyo ficil la taaban karo oo la malaysan karo qofka waxa sax ah in laga taabto xaqi labadii dadka la soo qabtayna culamaa u diin iyo oday dhaqameed dad aan macnaha horumarkii wadankana la soconin in la dhaho qofkaas lagu sharciyeeyaa ama qofkaas laga sugayaa waxa way arrintaas aad u xun tahay waa in dastuurka horta Soomaaliya haweenka Soomaaliya dastuurka muxuu ka qabaa kufsiga hadii gabadha kufsiga loo geeyo xaqiiqda dhabta ah ee dastuurka ugu qoran maxay tahay ma naqaano ma ogin hadii falkaas u dhaco maxaa lagu xaliyaa maxaase qofkaasi loo mutaysta ciqaab nooce ah dastuurka kuma bajirnaba meelan kaga qoranahay ma arkin waan u dagaalameynaa waan u dhabar jabeynaa waan u dhimanaynaa dawladda hadii tahay dhanban kaga jirnaa hadii tahay noloshii guriga waxa way doorka ugu weyn habeenkii kaga jiraan xuquuqdiina wali ma haysan iska dhaaf kuwana kufsanay in dhibaateynay iska badaa raggi aan waxba noo geysanayno guryahooda jooga xitaa ayadana dhankooda naga cambaareynaya hadii dhibaato ku dhacdo gabar Soomaaliyeed dib loo geysto raggi guryahooda joogi ma ogolaanayaan gabadhaas berito inay mustaqbal ka dhigtaan ma ogolaanayaan waa la faquuqa waa la dhibaateynaya waxa la leeyahay tii la kufsaday waxa la leeyahay tii mustaqbalkeeda lagu ciyaaray kii guriyihii joogina ma daryaalka ma haysan oo waxa way cambaareen baan kala kulmayna kiina kufsaday waabna dhibaatiyay kii madaxda ay xaqeena kama haysan inta Cabdirasaaq baalle waad mahadsan tahay waan kaaga mahadcelinaynaa qof walba waxaan ugu ogolnahay inaan daqiiqado kooban siino waqtigooda awgiis oo nagu yar waynu ku mahadcelinaynaa ilaahay runtii gabdhaheena Soomaaliyeedna ilaahay ha noo xafida ayaan ku leenahay mahadsanid وكاس يبي أخيارتا أنت كلا حنجع على وقت عبد المجيد ونومسا محيو إن أي ماركتيو أحمد نور حسن أيان شعله إن سوقته أوكي سيشار قرية مقالك ولا ليال سيشار قرية سيشار قرية إن شاء الله نور حسن سيشار قرية عبد الجيدين سوقوننا ولكن وقموا عيس حنجع على عبد الجيدين عبد الجدي لباش الله كن راعي كرجع مقعيش كل لي عما السلام عليكم وعليكم السلام عبد سلطان عبدي وين كسو دوين الناس سلطان سو دو حاجات نغا سو وعيسا aniga waxaan joogaa South Africa gaar ahaan Cape Town brother aad baan ku soo dhaweynaynaa Sultan Cabdi runtii barnaamijka hadii aad la socotay in badan waxaan filayaa inaad na soo dalbatay waqtiga cariiri ah awgiis iyo qadka oo ka xumaa
waynu ishaleeli weynay ugu dambeyntiina waynu ishaleelnay suldaan soo dhawow magacii suldaanna waad sidataa waxaynu ka hadlaynaa waa dhacdadii qiirada lahayd ee caaisha Ilyas dilkii foosha xumaa iyo waliba kursigii ugu dambeyntiina sababay in gurigooda hortooda meedkooda la soo dhigo gabadhaasi ayaynu baroordiiqdeeda aan u fadhinaa ama aynu ka hadlaynaa waxa inaga aadan ka rag ahaan iyo ninka magaca sumcadda raggaasi ku dheelay soo dhawow fikirkaaga oo kooban noo soo koob waan dhawaa brotherkayga wariye karama waa ku salaamayaa adigana adiga iyo nin yarkan kale marka hore walaalkii waa salaamanta marka niyaho saaxibo waa arrin aad u culus saaxibo yani wax laga maadan ah والله صاحبي يعني إن صغيرة يقصدان أدير هون معناها حواي ولا حد لو قح ما صاحبي يعني صومالي يعني وحواي وودنا دولة لهن هذني يعني قبل هذا كله سيبوا قبل هذا وعمبارها برادلك يعني وح ما ولا كجر ملها هذا كله يعني سيدا مقدسه كله وحال ربا يعني حكم أذك اللي هو قبته إن ده حلو قدي له مديان كاسو كله aad iyo aad walaalkay marka ugu dambeyn saaxiib adigoo waqtigii oo nagu yar yahay barnaamijkii uu gabagabanayo yahay garaad maxaa baaqa u diraysaa oo ku aadan falkaasi walaalkay wallaahi waxaan leeyahay gabadhan horta intii ay ka dhimatay هذا الله قبل يعني بري سلطان waxay sameynayaan hadana waqtigo yar awgis mahadsan yahay suldaanka aad baan kaga mahadcelinaa live-kan inta ayuu nooga egyahay asxaabteena saaxiibayaal kaliya waxaan ku darayaa noo soo celi heystan wax yar baag noo soo dheh hal mar waqtina ay siiso aan maraan soo gunaanado waa tahay waxaan ilaahay ka baryayaa tabaaraka wa tacaala in horta marka koowaad bigana uu ilaahay mideeyo waxaan ilaahay ka baryayaa in dhammaan muslimiinta Soomaaliyeed ee walaalaha ah inuu ilaahay qulubtooda isku keeno waxaan ilaahay ka baryayaa daalim ku dhalay ee daalimiinta kala qarinaya inuu ilaahay calaamad ka soo saaro inuu ilaahay tabaaraka wa tacaala raggaasi soo bixiyo in ilaahay tabaaraka wa tacaala raggaasi aadka u dilay magaca ragga Soomaaliyeed ku ciyaaray magaca qarannimada Soomaaliyeed dhaawacna u geystay inuu ilaahay soo qabto in waxaan ugu baaqayaa dadka galkacyo in waad ogtihiin dadka wax geystay aad laamaha ammaanka aad si qarsoodi ah ugu sheegtaan kaalinta aad leedihiin aad ka soo baxdaan ayaa loo baahan yahay wallaahi waa loo baahan yahay maanta haddaa ka qayb qaadan oo falkaas aad fiirsataan oo gacan aadan u adeegsanin oo gacan walaalkiina ama walaashiina aadan maaragtay ugu heelinin afkiina aad ugu heelinin wallaahi ilaahay aakhir waa idin qabsanayaa waana la soo taagayaa walaalayaal aan u midowno waxyaabaha noocan oo kala saan iskaga qaban lahayn aan u midowno mararka qaar waxaad isleedahay qof maxaa loo dilay waa waxa ku tusaysaa in xaalad kasta uu qofka caraka muujiyo xaaladan oo kale hadii ay kugu dhici lahayd waxaan aaminsanahay qof kasta oo shakhsi ah in uu fal uu ku kicilaa marka walaalahayga aad u mahadsantihiin inta maaragtay oo ay u saamixi waayay waqtiga inay barnaamij naga qayb qaataan barnaamijka kale aan ka qayb qaadan doonaa aan qaban doonaa hadduu ilaahay karaal noqdo ilaahayna waxaan ka baryayaa in ilaahay qulubtiina isku keeno cabdi majiid soo koob oo dadkuna iyaguna bal oraahda dhehayso dhammaantiin waad mahadsantihiin asxaabtayda meel walba aad joogtaan waa boggii wariye maxamed ibraahim karaama ayaa runtii live-kan aynu kaga jirnay hase yeeshee isagoo oo markaasi fikirkanna la yimid ayaynu annaguna anigu idinla hadlayo aan fikirkaasi la wadaagay dhammaan arrintaasi aynugu wada taagneed ilaa iyo saakayto annagoo shaqadii ka baxnay shaqadii ay gabagaba inoo tahay ayaynu walaalkeena isku fikir darsanay dhammaanna waxaynu meeshaasi ka dareennay in loo baahan yahay isku duubni fara badan oo xagga dumarka ah xagga raggana looga baahan yahay inay garab istaagaan walaalahooda dumarka ay qabaan meel walba waxa laga hadlayo gabadha waa walaashaada way kula dhalatay waad dhashay waadna qabtaa xaggeen ugu tagnaa marka walaalayaal intaas ayuu live-keena inoogu egyahay dhammaantiin iyo asxaabtii guud ahaan nagala qayb qaadatay kuwa fikirka qaldan ka soo dhiibtay kuwa fikirka saxanba ka soo dhiibtay dhammaantoodba waad u mahadcelinaynaa
waayo kan fikirka qaldan noo soo dhiibay naga soo dhiibtay ama commentiga hoos ha nooga soo qoray ama kan fikirka qaldan guud ahaan ka hadlay ummadda kalena fikir qaldan inay la tahay dareentay ayaga ayaa mar walba isu baahan wamaa asaaba min musiibatin fa bimaa kasabat aydiikum waxaa weeye tafaraaruqa ma fiicno ilaahay aayadan buu kaga hadlay marka dhammaanteen aan isku xirnaano dumar iyo rag yaan la kala saarin 50 waaye 100 waaye yaana la kala oran gabadhu waa walaashaada bas qabiilka jooji waa xaraam gabadhu meel walba lagu xumeynaa aad aragto ishoristaag xitaa askariga hadduu biiteem wato ishordhig dhimo awal baad dhiman lahayd nafsadan ammaano ayayd kugu aheed markii lagu imaado waan u lagaa qaadi hadduu ilaahay yidhaahdo laakiin ninka qori buu watay gabar buu horteedu ku kufsaday la adiyus waa kaas gabar nin xumeynay haddaad aragtaan asxaabteedii ama asxaabta maxamed ibraahim karaama beejkiisa ku xiran oo la hadlayaayo gabar nin xumeynay ha daawan ha fiirsan ha eegan biiteem dhashiiko ha wato naftan mar un bay go'i lahayd nabiga calayhi salaatu wasalaam aa geeriyooday aaway nabiyullaahi maxamed aaway aadam aaway xaawo aaway hooyo xaawo dadkii dhan carrada marka yaa laytanii kuntu turaab dhammaantiin waad mahadsantihiin intaasaan idinkaga mahad celinayaa aad iyo aad baan idinkaga mahad celinayaa livekan inta ay waqtiga ku bixisay iyo inta daawashadiisa guud ahaanba nagala qayb qaadatay dhammaantiinba mahadsanadiina باي باي بخير وضع كعنه هاي ديارون aan wada kacno heesteennii qaranka astaantii qaranka sidaasaan idinkaga tegaynaa saaxiibayaal meel kastoo dunida ka joogtaanna waxaa idin leenahay salaan sare